Asalaamu calaykum. Soo dhawaada. Maanta insha Allah tacaala waxaan maxaa la yihahdaa aan reaction ka bixi doonaa wax la yihahdo memes oo ah waxyaabo oo runtii shactiro badan oo soo jiidasho leh. Marka waana funny. So marka waxaan rabaa in reaction ka wada bixino because waa medical. So waxyaabo waxa waa caafimaad laakiin qaab runtii loogu hadlayo maxaa la yihahdaa refreshment inoo ah. So insha Allah haddii uu maxaa la yihahdaa ay dadka inta badan ay jeclaadaan insha Allah baarti badan ay soo subi doonaa because sometimes waxaa u baahan tahay marka caafimaad ku dhex jirtid inaad refreshment qaadatid waxyaabo oo shactiro waxyaabo qaar in laga hadlo. So marka memeskan insha Allah baarti one ayaa maanta ka hadlaynaa. Haddii insha Allah ay idin cajiso baarti kale ayaa kasoo subi doonaa. Okay, meme koowaad wuxuu leeyahay medical students taking selfies after graduation. wuxuu leeyahay macnaha ardayda markii ay tusaalaan oo kale gabdhaha dhameeyaan jaamacadda oo kale waxay u ekaanayaan uu leeyahay sidaan oo kale. Okay, marka runtii waa sawir qosol badan marka qaarkoodna ka tarjumayo xaqiiqda sababtoo ah in marka la baranayo caafimaadka ama medicineka runtii da'da qofka aad ay u kordhay sababtoo waa 6 sano. waxaa laga yaabaa adoo 18 sano ama 20 sano jira inaad jaamacadda caafimaad bilowdid medicineka. So marka waxaa laga yaabaa adoo 25 sano jirtid qaarkood 27 sano jira ay dhameynayaan. So marka waa xilligii leeyihiin marka sawirka wuxuu leeyahay marka medicineka lagu duqoobaa. So okay, ka socono sawir kale. How doctor listen to music. runtii sawirkan aad ayuu qosliyay because wuxuu dhagaha gashtay stethoscope-ka meeshii la rabay in uu maxaa la yihahdaa tusaalaan qofku wuxuu isticmaalaa earphone waxaa la geliyaa mobilka dhagaha ayaa la gashtaa. So marka wuxuu sameeyey stethoscope-ka afkiisa hore ayuu wuxuu saaray maxaa la yihahdaa mobilka dhagihiina wuxuu gashtay dhagihiina stethoscope-ka gashtay. So marka wuxuu dhageysanayaa miya wadnaha oo mobilka miya ma aqaano. So runtii sawirkan aad ayuu cajiibaya sida. Okay, next one wuxuu dhahay the doctor needs new glasses. sawirkan meeshii la rabay wuxuu ka tarjumaa dhakhtarka ay wuxuu rabay inuu gabar intramuscularka ama IM ka siiyo daawo. So marka meeshii la rabay IM inuu ka siiyo qof kale ay ayuu ku duray marka hooyadeed oo kale gabadha. So marka qaab khaldan ayuu siiyay. So marka waxay leeyihiin marka dhakhtarku wuxuu u baahan yahay new glasses. Glass wuu jiraa ama okiyaalo ma aqaano koo kale wuxuu u baahan yahay. Marka okay, let's another one. wuxuu dhahay when you are still a student but the patient says thank you doctor. wuxuu leeyahay marka weli arday aad tahay laakiin dadka patientiga uu ku dhaho bukaanka uu ku dhaho waa mahadsantahay doctor. runtii aad u farxiyay waa aragna anaga xataa because markii lagu dhaho waa mahadsantahay doctor waxaa waaye wax badan ay agtaa ka tahay markaa tahay arday. So sawirkan xaqiiqdu ka tarjumaa sina. Next one wuxuu leeyahay when I think I will look like after medical student how I actually look like. warun waa sawirkii hadaayo kale ay ka tarjumayeen because kii hadaayo wuxuu ka tarjumay dumarka kanna waa ragga. waa sax marka waxaa isku maleynaya marka jaamacad dhameynaysid qof yar ina ahaanaysid laakiin xaqiiqda waxay tahay waa da'da aad u kordhay. Okay, next one wuxuu leeyahay dhakhtarka ayaa wuxuu leeyahay your case is quite complicated. Patientiga wuxuu ku leeyahay kiiska aad ayuu adag yahay. wuxuu leeyahay marka patientiga ama bukaanka sabab why doctor what happened maxaa khaldan maxaa dhacay bukaanka uu naxay marka wuxuu dhahay marka you got a disease from the chapter which I left as optional during my study. chapter wuxuu dhahay marka wax baranayay adi cudurku ku hayo wuxuu dhahay waxa waaye chapter marka wax baranayay option ahaan ugu soo tagay adani oo cudurkaas ku haya marka ani optional ugu soo tagay kuma daaweey karin camal. runtii mararkood maybe way dhici kartaa markii lagu jira xilliga pandemiga da coronavirus oo kale waxa la yaabaa dad badan oo maxaa la yiraahdaa optional u qaatay in ay maxaa la yiraahdaa adoo patienti oo kale ay saan ku dhacaan. So next one wuxuu leeyahay where my face when non medical people give me medical advice. wuxuu dhahay qof aan caafimaad baranin oo kale markuu advice ku siiyo macnaha talooyin kuu sheegay oo caafimaad ku saabsan
qof tusaalahan oo kale bartay computer ama artist ka bartay oo kugu wacdinayo medicineka oo kale wax kaaga sheegayo bada wejigaaga wuxuu noqonaa sidaan oo kale runtii ninkan wejigiisa aad isku bedelay so marka waana run qof aan caafimaad wax ka aqoonin markuu advice ku siinayo waxaa waaye waa inaa kuuma soconayo. Okay, next one wuxuu dhahay doctor my back hurts when I wake up in the morning. Bukaanka wuxuu leeyahay subaxdii markaan soo kaco dhabar xanuun aan kusoo kacaa doctor, marka maxaa ii tale daawaan rabaa ii daawe. Dhakhtarku wuxuu leeyahay marka haddii aad subaxdii soo kacid haba soo kacin subaxdii wake up in the afternoon then haddii saas taa wuxuu dhahay habeenkii la soo kaca subaxdii inaan soo kacin waa so funny wallahi. Okay, next one, the last one aku soo gaweynayna wuxuu yahay when you search the symptoms of hair loss in Google and it reveals you have a cancer. Walaay ningan reactionkiisa aad u weelay wuxuu sameeyay Google-ka wuxuu weydiiyay maxaa la yiraahdaa maxaa sababo timaha inay daataan. Okay, waxaa loo jawaabay marka waxaa qabtaa cancer qabtaa marka ninku uu nahay marka wuxuu sameeyay bismillaahir rahmaanir timti inay hado cancer ma keenayo. So reactionkiisa qaabku noqday runtii aad u hosl badiyay. So guys, thank you so much. Dedication inshallah ta'ala oo soo badi doona video baartiye badan ay soo sameey doona because refreshment ay inoo yahay lectures marka qaadano oo 10 badan marka qaadano then waxa ku tuurinayna memes. Marka thank you sidoo kale xataa hadii ay badato waxaan inshallah ka soo hadli doona video or reaction oo caafimaad ah ka sameey doona. So thank you guys, bye bye.